waxaan ahay hani muumin maxamed ninkeeda. Okay, ani waa qabtaa waa sheegaysaa waa qaba hadhowaysaa naaga nina iga guursatay naagti nina baka guursatay way baka guursatay waa u jeedaahay hatta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانت وين السلام يا ولكن قولي وكله حداد يقول صوت هاي سبسكرايب يسار رانتي شلون كيجن حنشالها هنا كله ذاكو وحيالها دعاء وحيالها السوشيال كا أما نلاش قصابسن يا وحيالها رياليتي وباهن نادوجاتيد مركا ما تحرم إن شاء الله إن كيره الله أرينيرو معلمهن سوشيال ميديا آد لو هستي meeshaad furtaba kaa soo horbaxaysay marka fiidiyo yar baan isku keenay aan jeclaystay bal inaad idinkuna ilo ogaataan kulli badankiin waad ka warqabtaan laakiin xaqiiqda runta waxay tahay runtii gabadh ayaa waxa guursaday wiil youtuber ah dabadeetana muddo kadib waxa ka soo daba hadlay nin kale oo u wad haysta dabadeetana wuxuu yiri gabadhan aniga qaba 5 caruur inay dhashay runtii marka ilaahay laga baqayo gabadha wajigeeda hadad aragto gabadh 25 sano la qabay umeeg aniga haantayda markaan arkay fiidiyoda wada daawaday markaa sababta ma garanayo iyaduna way hadashay hadaladeedii waxeedo dhan waan fiidiyo yar baan ka soo qaatay fiidiyoyadeeda oo dhan iyo kuwii hadleen waxa soo waqtiga qaadanaysa daana wada dhageysanna wada daawanna marka insha Allah ka ugu horeeyo fiidiyo ugu horeeya ayaan jeclay inaan daawado oo yani markii ugu horeysay oo ninka sheeganay inuu gabadha qabay oo leeyahay waan qabay bal fiidiyo ugu horeysa daawano waa kan waxaan ahay hani muumin maxamed ninkeeda. Okay, ani waa qabtaa waa sheegaysaa waa qaba hadhowaysaa naaga nina iga guursatay naagti nina baka guursatay way baka guursatay waa u jeedaahay hatta haddii ay dhacmada dhicin inaa qabtid haddii ay dhacdo xataa ma ka daba hartid maxaa maalin walba hadalkan aa u wadaa oo ilaa youtuber ilaa meel ilaa wax aa u gaarsiisay kamaanu midaan aa samaysay wallahi waa isbahdishay waxa kaga hadlayni marka ugu horeysa ninka odayga ay soo sheegtay aniga qaba ayaa wuxuu leeyahay gabadha aniga qaba 5 caruur ay dhashay Sweden baan ku nooleen adigu storygiisu waxa ka sheekeynay gabadhuna runtii inuu dareenkeeda ka hadashay waxay tiri anigu gabadh la qabo runtii diinta islaamku xaraam bay ka tahay gabadh la qabo inay nin kale guursato marka dadka qaar waxay leeyihiin gabadhan way sixran tahay inaan kan kale guursado baa sirxay runtii qof sixran oo waalan intuu ticket soo goosto oo fiisa soo qaato muu imaadeen Turkiga nolol isna muu samaysteen qof xanuunsan oo waana wax lagu ogaa qof isla hadla oo xirxiran marka runtii sheekadan waxa ay tahay sheeko propaganda waxba ka sii hordhici mayno wixii jirin ilaahay bal fiidiyo yaro kale oo gaaban bal eegno oo isla iyaga ku saabsan oo markan gabadha ayaa hadlaysa qof dhan oo meel taagan oo gabar ah oo walaashiina waxa leedihiin qof walba inta isku soo daba kacdeen naagtas qayaanoolay waay ama ninkaas way sirta waa sirid xataa ma ahan taas waxay u dhigantaa naagtaas waa naag sharmuuto ah ay u dhigantaa ma ahan yani way qayaantay naag nin qaba nin kala guursatay naag waxa waay sinaysatay waay taas anigana ma sinaysanin marka caayada iyo aflagaadada waa xaraan ina joojisiin isku daya maalin walba gabar Soomaaliyeed ka oysiin ama meel u soo fariisatiin waa qalad maanta ani zaa'ida oo xanaaqsanaa waligeena ma xanaaqin saamaanta way cabanaysaa waxa leedahay dambi baa laga galay waxaa jira niman youtuber oo barnaamijkan sii kicinaya oo dabka sii horinaya gabadhii ayay waxay sameeyeen ninkeebay booqdeen qaar iyagu waxba ogeyn bay markiiba isla sheekadan markii cusbeed soo galeen dabadeetana falcelin bay ka sameeyeen marka gabadha waxay leedahay runtii meel baa sumcadeeda iga dhacdeen waxaad iga dhigteen qof sinaystay oo kale subxaanallah gabadhan waa gabadh sida ka muuqata dee wajigeeda gabadh 25 sano la qabay horta uma ekaani haanteeda guleed adiga ay daawanayaan haddii aad leedahay waxaan sheekadan waa run bal sababta run ku noqotay la soo wadaag
laakiin wejigan weji 20 sano la qabo meeka gabadha waxay leeyihiin waa 43 jir wejigan 43 meeka runtii sheekadan waa sheeko aad iyo aad u waalan sanadkii cusbaa ee 2022 wuxuu ku bilaabay sheekadan buu ku bilaabay filimkan marka dad badan baa waxa isweydiinaya gabadhu ma runbaa way saxan tahay bise waxa jira waxyaalo kale oo tuhuna marka gabadha iyadoo sii hadlaysa ayaa waxa inan kale youtuber ayaa wareystay dabadeetana waxay ka sheekeynaysaa bal waxa jira horta cabsalaan ninkeyga ma ahan laakiin waa aqaanaa cabsalaan waxaan ku aqaanaa horta waa qofkii wadanka Sweden keenay ciyaalkaas asaga uu dhalayna anaa u keenay sabab arkaysan videoga yar gaaban inantu waxay ka hadlaysaa in cabsalaan ay taqaano cabsalaan uu yahay shakhsiga hadda gabadha le waan qabaa waxay tiri cabsalaan waan aqaanaa okay isaga ayaan wadan keenay marka waxa ka dhigayta cabsalaan inuu gabadh isagu dacwooday wadanka keenay kadibna ilmahan ee hadda lagu haystay 5 ciyaal ayada dhashay inay iidu u dacwootay si hooyinimo ay wadanku keentay marka meeshan wax isqaba yani sheekadani ninkan cabsalaano gabadhan waxay been abuur aad ka sameynaysaa sida sheekada ku taal hadii uu cabsalaano gabadhan qabo maxaa loo waayay sawir ay ku wada jiraan cabsalaan iyo inantu in laba qof oo isqaba sawir iyo arooskoodii iyo lama waayeen Soomaa cabsalaano gabadhan hadii aad qabto maxaad u keen weeday xaqiiqa gabadhan goortii ninkii qofkii ku meheriyay waalidkii ku siiyay maxaad u keen weeday marka runtii aniga haanta waxaan isleeyahay ilaahayna wuu og yahay kuma dambaabay laakiin aan haanta gulaha isleeyahay cabsalaano filim kala wada saaxiib gabadha masaakiinta ilaahay dad ka cabsatay ceebaheeda iyo dulmigaad ku wada ka jooji waxaan kale arkay inaan kale youtuber aan soo fadhiistay lahaa cabsalaan waa in adeerkay dambi baa laga geliyaa marka ma filayna in aad runtii wax aanad ogeyn aad yani ka hor dhacdo aniga hanteeda maalin hore waan arkay laakiin ma jeclaysan in aan waxaan ogeyn aan yani ha ku hadlo xaylay waa inaad wax kasta cadeyn ka haystaa marka ilaa hadda wixii ma cadda laakiin inantu sidii hadalkeeda ku sheegayso iyadoo mar kale hadlayso ayay waxay leedahay sidan bay leedahay هني ما واحد إلى هاي قبل النجمة هيد وأنا عد كده دقيستي يدرين كي يكون ليسو أنا يقول مدلين ساس واي نجمة هدي أنا قفك عوان كي هذا جبيه إنستغرام كجاب صدق هرتو أنا يا نجمة ضد وحان أهين ميل سكولا نول marka qofka Instagram kayga jabiyay oo email kayga jabiyay horta waa Najmo ma u maleynayo cunug inuu jiro hooyadiis emailkiisa jabinaya rabana inuu ceebeysto hatta Cabdisalaan hadaan xaaskiisa runa ahaan lahaa ama nin aan kala tagno oo ahaa lahaa ma u maleynayo inuu saas u ceebeyn lahaa wayahay Najmo waxaad dhahday waxaan ahayn dad meel wada joogo bal ii sharax maxaad ula jeedaa aniga iyo Najmo isku meel aan deganeen macnaha dad kala shakin kara ma ahayn Najmo waa qof weyn anigana qof weyn ahay maadaama anaga aan markii horeetaba isla joognay dad isla yimid aan nahay hadda dad wax u kala baxsan yihiin ma ahayn saas daraadeed keentay in emailkayga uu saas u gabadha Najmo sheegayso waa gabadha inanka youtuberka wareysanayo oo ilaa waa hooyaday inantana waxay leedahay ma jira qof waalidkii yani waxyaalaha brifaadkiisa salaansi emailkiisa Instagramka jeegiso kale qof intuu jibiyo dibadda soo dhigay waa maya ruuxantii halkan waxa ka muuqata inaanay yani wax u wada gabadhan arintani meesha ka qasantaano ma garanayo wixii jirin ilaahay baa og laakiin fikir ahaanteeda waxaan isleeyahay gabadhan gabadh maskiinada inay u eg tahay oo lagu xadaawo kulli anaga wadan sharci laha joognaa wadankaas waa inaan asagana uu dacwo tago anigana aan dacwo tago horta hooyo ilmaheeda inkareysa inay jirto uma maleynayo anigana kamaal waa u sheegi lahaa hadii aan ilmaha dhalay ilmaha dhalihi lahaa ama uu igu qaadan lahaa ama uu iga tagi lahaa marka kamaalna ma aha nin lacag badan oo aniga aan lacag u xilanayo maanta oo aan isdhahayo qofkan istu jaanisa kugu dhaafayo marka ma u maleynayo inaan saas sameynayo qof nin qabana ilama ahan kamaal iyo aniga muddo issukaansanayna u maleynayo inta issukaansanayna habeen walba waa isla hadli jirnay asagaba wuu ogyahay hadduu hal mar xataa uu arkay nin gabadha waxay tiri
runaantii anigii inanka imankaas guursanay muddaan shukansanaynay yani muddaan wada sheekeysanaynay haddaan ilmo dhalana kamaan qariyeen haddaad yani qofka wada sheekaysataan dee marunbaa noloshiisa brifaadka aad ogaan lahayd laakiin hadduu ilmaha dhali jiri lahaa kamaan qariyeen aniga ahaanteeda sheekadan waan ku wareeray waana sheeko iska musasala gabadhuna waxay run ahaantii dhowr jeer ay ku wacad furtay ama ay ku dhaaratay in ay sharciga la tiigsan doonto dadkii ceebaheeda faafiyey ay kamid yihiin dadka youtuberada youtuber isagoo ka raadinaya yani views meel khaldan ayuu run ahaantii god ku dhacaya soomaalida waxay ku maamaadaa duqsi duldul badan marunbuu fuudkul ku dhacad yani haddii ay fafagtaadu badato run ahaantii marunbaa sharciga lagu soo taagaya gabadhan hana waxay ku dhaaratay qof kastoo been ka sheegay inaad leedahay lawyer dabeetana maxkamad ama dacwad lagu soo furi doono ninka odayga ay cabsalaana in run ahaantii sharciga ay ku kala hari doonaan cabsalaano haddii aad yani gabadha maskiinada aad dulminaysaan waxaan ku oran lahaa ilaahay ka cabso walaalo haddii aad xoog ku haysato gabadhan ilaahay dartii u ammaangelin waa hadduu yani qof soomaaliyed walaalkiisa taladiisa qaadanaya nahay runaantii sheekada kuma sii dheeraan doona wuxuu jira ilaahay boog yayna ku dambaabin intaas ayaan kaga baxaynaa dhammaantood salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatulla